780 askari oo ka tirsanaa ciidamada qaranka Somaliland ee ku sugnaa bariga gobolka Sanaag ayaa ka goostay ciidamada qaranka Somaliland waxaana ku biireen ciidamada maamulka Puntland ee Soomaaliya. Taliyihii guutada 39aad ee ciidamada qaranka Somaliland ee gobolka Barangaashaan la dhexe Xuseen Faarax Aadan Xuseen Dheere oo isagu ka mid ahaa saraakiisha horkacayay ciidamadaasi maalintii shalay toole lagu qarameeyay maamulka Puntland isla markaasina loo sameeyay dalacsiinta darajo ciidan oo khadka telefoonka telefishinka bulshada kula xiriiray ayaan ugu horeynba weydiiyay sababta ay uga goosteen Somaliland. Taliyo waxa uu sheegay in aanay jirin meel ay ku diideen dagaal ay la galaan maamulka Puntland balse waxa uu sheegay in xukuumadda Somaliland ka waayeen agab ciidan iyo waxyaabaha kale ee ciidanku u baahan yihiin si ay dagaal ula galaan maamulka Puntland. Waraysina dhexmaray aniga taliyaha ayaa u dhacay sidan waxa jirta maalintii shalay toole inaad u goosateen dhanka maamulka Puntland bal arinta ka waran tali waxa jirta inaad Somaliland muddo dheer taliyaha deegaanadaasi ahayd inkastoo aad u si rasmi ah uga hadal maxaa sababay inaad ciidanka Somaliland ka goosataan waxaan isla weynay saraakiisha ciidanka marka maxaad isku fahmi weydeen waxaan isku fahmi weynay ciidankii oo agabkii ku hawlgeli lahaa iyo dayactirkiisii ay dameelway xukuumad marka agabka iyo dayactirka ciidanku baahay mid nooceeyaabo ahaa waxa weeye gaadiidka iyo saanada iyo dareyska iyo alla wixii ciidan u baahan yahay marka laga reebo mushaarka iyo garab marka sababtaad waxa u doonaysaa ma waxay dagaalaad ku qaadaan maamulka Puntland aan markaa doonayay markaasaan doonayay dawladda waxaa isku jirta mirweyn dawladda arrintaas laakiin taliya ma jirtaa inaad idinku diideen amar ah inaad Puntland ku qaadaan dagaal maya ma jirto waxa weeye waxa laga waayay wixii lagu hawlgeli lahaa markii hore qorshe saas u ahaa markii hore waxa laga waayay wixii lagu hawlgeli lahaa laakiin waanu go'aansanay markii dambe inaan dagaal ku qaadin maamulka Puntland ma ahayna dadka ay ahaayeen waxa lagu hawlgeli marka inaad xuduudka Somaliland soo xidhaan miyaan ahayn waxa awal dileedka Somaliland xidhnaydeen idinku anagu markii hore ciidanka waa ka mid ahay Somaliland xuduudkana in laga xilay ma jirin nabadgelyo lagu wada noolaa oo waxa weeye dhulka wax nabad baa ka jirta wax dhibaato ka jirin waliba Siro bariga Sanaag waa gartay laakiin xukuumadana hadda waxay keentay in maaragtay dhulkii dagaal laga abuuro ana waxa weeye waa soo horjeedaa anagu ma barantaan raacsanayna aan ku faraxsanahay idinku maxaad ku diidantihiin Somaliland inay deegaanadeeda calankeeda ka taagto oo ay ka xidhato mas'uuliyiinta kale maamulka Puntland ee Soomaaliya ka soo galaya waxay noqon wayday Somaliland la wada leeyahay oo loo sameeyay wax tarkiga iyo waxyeelada dadkeeda loo sameeyay marka ma waxaad leedahay cid gaar ah oo ku manaafacadsata marka Somaliland cidda wax ma nooga sheegi kartaa cid yihiin waa cid gacanta ku haysta laakiin wasiirka cadaaladda deegaankiina ka soo jeeda oo yimid oo adiga laftigaagu aad soo dhaweysay arrimiyaad ku balanteen maxaa iska kiin bedelay arrimaha aan ku balanay anagu dawladda wasiirka balan gaaranaanu gelin waan gartay wasiir socdaal baa safar buu ku yimi wax uu sameeyay wax uu noo wada ma jirin waan gartay waxay ahayd kaliya barnaamijka Siro baran baan tagay kaliya waan gartay sidoo baan tagay kaliya wax kale oo weeyay waan gartay ma ay jirin laakiin mas'uuliyiinta Puntland maxay idin ballan qaadeen idinka oo deegaanadiina ama idinka dan gaara annaga waxay noo ballan qaadeen oo gaari ma jiro laakiin waxaa qorshaha inaan dalkayga iyo dadkayga difaacno oo ka difaacno waliba maamulka Somaliland maadaama noqday inaan loo sinayn rag badan oo nala midna hore uga tageen raggii hore kaga tageen baan kaga tagnay anagu qaar baa wax leen dad badan oo iska soo noqdaan oo ciidamada Somaliland oo beelaha dalka ka soo jeeda gobolada koonayaasha ma laga yaabaa in Somaliland markale ku soo noqoto maamulka Puntland waxa la sheegayaa inuu horumar ka wado deegaanadaasi taasi ma jirtaa mise ma jirto maxaa kamid ah horumarka waxaa kamid ah laamiyaha kamid ah jaamacadaha kamid ah waxaa kamid ah iskuulo waxaa kamid ah MCSyada iyo meelaha adeegyada guud eelasha wax badan baa kamid ah waa kullinaha ciidan intee leeg baad ku goosateen tirada ciidankiina haddaad ii sheegto 780 ciidan markaa 780kaasi taliya haddaad dad badan bayna dhegeysan aad u faahfaahiso halkay ku kala sugnaayeen waxay ahaayeen laba guutay ka koobnaayeen oo meesha la yiraahdo Armale dhammaan xagare eelbu garoon gaxar waan gartay intaas fadhigood hubin teleg ama technical teleg baa sidoo kale Somaliland kala baxdeen ciidankii wax baa muu qaadan baabuur laakiin ciidamo kale oo Somaliland ma jiro deegaanadaas ku sugan mise hadii aad dadka u faahfaahiso bal aragti ka siiso dadkan deegaanada arag ma guud ahaan ciidamada Somaliland jooga agaarkaas oo dhan baa ka baxay ciidamo kale oo ku sugan hadda aan ognahay ma jiraan ciidanka Somaliland inta iyo inta nala dhigay oo kala nala mid oo hadda baran aan ku ogeyn oo iyaduna kala jaan qaadaysa Somaliland dareemayno waqti dhow iyaduna u helaan inay taas oo kale ka mid noqoto waxaan hayno
adigu sarkaal gaashaala dhaxaata xuseen dheero imse sarkaaloo kalaa kula socda misaalkay maamuli jireen waa tarabaayeen saraakiishu dee ilaa 30 meelahaasay gaadhayaan waxa weeye duwanta saraakiishu noocyo badan bay leedahay ma garatay waan gartay waa maxay tallaabada tan idii xigtaa taliya tallaabada noo xigtaa waxa weeye dee inaanu anagu cidda dhib la dooni mayno waan gartay somalilandna ma rabno inaanu deegaankeeda iyo dalkeeda ku weeraro oo dhibaato u geysano iyo shacabka toonna anaga qorshe ayagu wey waxayna soo doontan inaan iska celino deegaankana ku sugnaano marka deegaankan waad ku sugnaanaysaan maamulka puntland baanad ka amar qaadanaysaan miya waa sidaa wey deegaankan ku sugnaanayna maamulka ka amar qaadanayna